madaxweyne waxaan rabaa inaan si hordhaca kuula wadaago maamulka gobolka Banaadir wuxuu heer gabagaba ah marsiinayaa qorshaha horumarinta gobolka Banaadir kaas ee 5 sano qorshaha horumarinta gobolka Banaadir ee 5 sano kaas oo ka kooban 6 tiir isla markaasna ku salaysan qorshaha horumarinta qaranka iyadoo ahmiyadda la siinayo amniga ayaa tiirka koowaad ee qorshaha horumarinta gobolku wuxuu ku saabsan yahay amniga siyaasadda iyo cadaaladda markii aan samaynaynay qorshaha horumarinta gobolka waxaan la tashiyo la samaynay dadka ku nool 12 degmo si ay runtii uga qayb qaataan horumarka iyo amniga ay rabaan inay gaaraan muddo 5 sano ah madaxweyne waxaan runtii gobolka Banaadir iyo shacabka magaalada Muqdisho ku nool sida maanta indhaha ku aragto waxay diyaar u yihiin inay u istaagaan horumarinta caasimadda iyo amniga magaalada Muqdisho si ay ula tartamaan caasimadaha adduunka madaxweyne uma soo istaagin inaan khudbada ka jeediyo waxaan rabaa inaan ka codsado ka shaqaalayaasha xafladda inay ila soo dhaweeyaan madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya